Dawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambalelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan. dhammaanba caalamka oo dhan sida wadamada waaweyn ee Islaamka, wadanka Pakistan, wadanka Turkiga, wadanka Tunisia, Lebanon, wadanka Iran, wadanka Soomaaliya iyo dhammaanba caalam Islaam ay ku jiraan wadamada reer galbeedka ayaa aad looga mudaharaaday iyagoo dadku ku dhawaaqayaan Palestine free. dadka muslimiinta caalam Islaam waxay ka soo horjeedaan gumaysiga lagu hayo dadka masaakiinta ee Falastiiniyiinta. mudaharaadkan ayaa laga yaabaa inuu sii socdo maalmaha soo socda. Baahiya al-Hariri waa gabadh ka tirsan baarlamaanka wadanka Lebanon waxay khudbad ka jeedisay qiiro leh meel la isugu yimi oo fagaara. waxaan idiin sheegayaa inaan idin hayno naxariis iyo kalgacal u hayno dadka iyaga ku dhaqan magaalada Jerusalem ee haysata Yuhuuddu, kuwaasoo difaacaya marinka Gaza. waxaan idin ballan qaadayaa markasta inaan garab taaganahay. waxaan idin sheegayaa kaliya waxaan u noolnahay difaacideena saacad kasta iyo minad kasta. halkani waa magaalada weyn ee Washington ee wadankaasi Mareykanka. kumanaan muslimiina oo jahliyad ka soo jeeda Falastiin iyo wadamo badan oo Islaam ayaa isugu soo baxay fagaarooyinka waaweyn ee magaalada Washington. furfurnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ta gudaha wadanka Mareykanka iyo aaminsanaanta qof kastaaba inuu si xor ah u dhiiban karo fikirkiisa ayaa ka yeeshay dadkan inay si firiya u dibad baxaan. Ayman waa gabadh ka soo jeeda Falastiin oo ku nool wadanka Mareykanka. waxay leedahay waxaan rajaynayaa in si fiican loo fahmo xaaladda ka socda marinkaasi Gaza ay ka hadlaan madaxda caalamka iyo kuwa muslimiinta. waxaan u malaynayaa in la joogo waqtigii uu Mareykanku uu ka soo horjeesan lahaa Israa'iil oo u helin lahaa Falastiiniyiinta. duqeynta Israa'iil ka wado marinka Gaza ayaa mid sii kordhaysa. sidoo kale Hamas waxay ku jawaabaysaa gantaalo dheereeya ay ku duqeynayso magaalooyinka waaweyn ee Tel Aviv. ergey ka socda Mareykanka ayaa gaadhay magaalada Tel Aviv 14 bishan May, taasoo la doonaya in hoos loo dhigo xiisadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. sidoo kale wadanka Shiinuhu wuxuu dadaal ugu jiraa sidii loo yareyn lahaa xaaladdan u dhaxaysa labada wadan, Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. wadanka China ayaa 16 bishan May ku dhawaaqay xabad joojin ugu baaqay qaramada midoobay inay ka dhex samayso labada dhinac xabad joojin waarta. sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka China oo lagu magacaabo Shu Jilian wuxuu sheegay in loo baahan yahay xabad joojin. gaar ahaan Israa'iil waxaan u sheegaynaa waa inay isxakamaysaa, waa in loo hoggaansamaa maanta ay wado qaramada midoobay, waa in la joojiyaa duminta guryaha Falastiiniyiinta, waa in la joojiyaa qixida dadka Falastiiniyiinta. sidoo kale Israa'iil waa inay joojisaa isballaarinta ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta. sidoo kale waa in la joojiyaa hanjabaadtan rabshadaha wadata, iyo sidoo kale waa in la joojiyaa kacdoonka laga soo horjeedo dadka muslimiinta. waa in la ilaaliyaa oo la tixgeliyaa dhulkan taariikhda leh ee Jerusalem iyo dhulkan ku aastaysan diinta barakaysan. warbixintan oo sii socotay ayaa lagu yidhi wadanka China wuxuu soo dhaweynayaa nabad kasta oo ka dhex dhalata Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. wadanka China wuxuu soo dhaweynayaa wadahadal u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta kaasoo lagu qaban doono wadanka China waa haddii ay aqbalaan labada dhinac. China si togan ugama qayb qaato dhibaato kasta oo ka dhacda caalamka, kaliya wixiisu waa afkawn. laakiin waxaa la rajaynayaa inay timaado sawirro naxdin, dhimasho, geeri, guryo dumaya ayaa dhex wareegaya baraha bulshada. laakiin inaga muslim ahaan waxaan ku caawin karnaa ducada oo kaliya.
نصرة. انت بخير؟ والله ولا شهيد. شهيد يا اخوانا. daawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan